saddexda arrimood ee galabta aan ka hadlayo inta aan faallada ku furfurin ujeedko warka aan falaqayn adna fahan dhankaaga sheerta iyo falowda iyo farta laagta ku adkee ha iska fiirsan kaliye soo dhawaada mar kale waxaan idin iri saddex arrimood la'aantood saddex kale laguma dhaqaaqo midda koobaad oday la'aan lama garamaa la yiri adiga oo nin oday ah oo ab ogaa ah oo waaye joog ah oo guud caddaa ah oo garyaqaan ah dalqa xanaf ah adiga oo wadan oo horay u kaxaysan geedka lama tago geedka haddii aadan wadan ninka aan kuu sheegay iyo odayaal la mid ah oo waaye arag ah waxaad u tegi doontaa oo geedka aad u socoto kaaga horeeya kuwa iyagoo kale ah oo lagu diyaariyey oo inta ku soo dhaweeya adigoon dareemin weliba inta kuu aga marmara kaa dareersanaya wax allaale wax aad hayso maxaa yeelay shalay baad ku fac tahay wixii daraad iyo ka hor soo dhacay 100 sano ka hor ahaa waxba kale ma socotid wax xeerku ugu maqan iyo wax hore loo xugunsaday iyo meel uu xaal joogo toona war kama haysid waxaad ku dhacaysaa marka janab xoolaysan oo lagugu talagalay iyo dabin aadan ka soo waaqsan wax allaale waxa jeebkaaga ku jirana barqaacda la dareersanaya markaas adigoo raaliya weliba iska soo dhaqaaqaysa waana sababta loo yiri oday la'aan lama garamo xaqiiqo weeye haddii aadan oday haysan ha garamin hana tagin geedka oo yaana isu ka raacin ceeb iyo ceyr adigoo faramarano jeebkaaga wixii gacanta ku jiray rag qaatay iyo adoo ceeboobay oo caqli xumadaada iyo taariikh xumadaada iyo afgarocnimadaada iyo doqonnimadaada la arkay ha isku darsan war ninkii keligii maalootiya meel xugo halis baa la yiriye raggaaga lagama dhaxbaxo aad baad u mahadsantahay qodobka inaad fahanteen baan u malaynayaa qodobka labaad ula'aan lama socdaa la yiri ula'aan lama socdo marka koobaad waa diini oo waa sunno nabiga looga daysanaya calayhi salaatu wasalaam waa mardaadi oo wax ragoo usha markuu qofku wato haybad gooniya hay leedahay sida gaarka ahna waxa u qaata nabadoonnada siyaasiyiinta dhaqanka iyo dadka waxgalka ah bulshada indhaha u ah usha markay wataan haybad iyo maqaan bay u siyaadaysaa culimaduna waa qaadataa maxaa yeelay fawaa'id badan ayay ushu leedahay haddii uu bahalka hor yimaado waa hub aad isku difaacdo qof hadduu ku soo weeraro ama ha fayoobaad ama ha waalnaade waad iskaga dhigaysaa oo ushu waxa weeye waad ku dagaalamaysaa waad isku difaacaysaa waana xarago oo foolxumo kulama dul saarna sidaa darteed faa'iidooyin badan ayay ushu leedahay nabigana waa looga daysanaya calayhi salaatu wasalaam wax walba oo nabiga looga daysanayana khayr iyo baraka ku jirta qodobka saddexaad ee ugu dambeeya awr la'aan lama guuraa la yiri sida aynu ognahay geedi dhicis ma lehe haddii aad hayaan dheer u ka tagtid iyo haddii aad roga tagtid intaba waxaadan ka maarmi karin awrtii saajinka ahayd qoorarkii iyo koromadii hayinka ahaa oo rarka yaqaanay ayaan laga maarmin in xamaamada la saaro haddiise aad istiraahdid meel dhow baad u guuraysaahe awrtii kama gaartide armaad rogataa ood adigu daldalataa ood garab rartaa ood xamaashaa ogow inaadan ku dhicin samay karinna hortaabaa la samay waayey aqal kaamil ah oo dhammaystiran roobba yar ka hadli maayo garab aadanimo daldali karo aad baad u mahadsantahay qodobkaana waa fahantay guud ahaanba halkaasaan kusoo gabagabaynayaa saddexdii idiin sheega ay ahayd saddex la'aantood saddex kale lama sameeyo oday la'aan ha garamin geednaa tegayaadna foolxumo ka qaadine awr la'aan ha guurin haddii geeddi aad u hoshato ul la'aan ha socon haddii aad lugay tagto ama aad meelmari tagto yaan goodaadooyinka iyo haraamada iyo masaska iyo goodadka ku cunine halkaan haddaad ila soo gaarteen aad iyo aad baad u mahadsantihiin sii sheer garaya muuqaalka oo la wadaaga saaxiibadiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu